أصحابي soomaalida ma aragta soomaalida caadi ma ah luuqa waxaa la ii soo dhigoyaa clip yar oo waraysigii tusma laga soo jaray marka waxay ii soo qorayaan farxiyo 21 naag 21 naagood oo caana aan lahaayaa oo soo socdaanay dhahoosaay maama tusmay farxiyoy goorma la soo daynaa hees miya hees new song miya oo video cusub miya oo soo baxooyo oo shimee la soo daynaa Soomaali waa fadeexad u diyaar waayba dad waxa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin ya subhanallah wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashan jecel say u badan yihiin ka hadlooyaade Soomaaliya say u badan yihiin asaasade anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadloonaa lambarka badan aan sheegoonaa calashan why interest ugu yihiin inay xumaan arkaan raadi inaa wanaag aragto raadi inaa qurux aragto raadi inaa sharaf iyo karaamo qof leeyahay aragto hadda ka hor waxaan maqlaayay dhowr sano ka hor 10 sano ka hor ma eed waxaa lagu yiri 4 qof oo Soomaaliya meel isugu imaata hal qof oo waalan war amay run tahay hal midaan marka idin sheegaa kulley wax kasta mar baa laga ilbaxaa wax kasta mar baa laga ilbaxaa waxaan rajaynayaa inay Soomaalidu ka ilbaxdo inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo ina interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waay calsha xumaan interest ku noqotid wax lala yaabo ay ku qabato bun camal ku qabato laakiin waxaan idin sheegaa waxaan waa iska dhamaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waan iska dhamaahayaan sababta markasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa u arkaysaan ma idin sheegaa sababta markasto dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay Soomaalidu u raadiso ama markastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxba laga hayaa waxba saan uu yahay kan uu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareey ma taqaanin idinku way dhacdaa oo laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxa waaye inaa interest ku tiina la ogyahay waxa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo Soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan calashan fiiriya awalan waxba leeyahay dheefeen xabada leeyahay kuma dheefeenaday ayadoon xabadna leeyahay ku dheefeen aad waxaad extra keensateen oo ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaan aad jeclaateen ayadoon munaafacaad kala dhan leeyahay ku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka dabagala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqayn idinka waay marka maskaxdayda yar ka shaqaysiiyay waxa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ku dareemoyaan arrintii tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen klibkan yar oo la carcaraayo 12 dumara 12 naagood oo caana allahaaya camal maxaa marka ka helay hadayba jirta xataa oo lahaayo naag Soomaali oo caana oo la afuufo waayo ama nin Soomaali oo caana wax afuufo waayo waxa interest ugu noqonaysiin ama qof dharra ama qof dayacan oo caan oo kala daadsan wuxuu ku soo kordhiyay mi sheegi kartiin ani
ma ii sheegi kartiin haddaa caqli leedihiin in qof soomaaliya oo caana oo walaalkiina ceebtiisa la raadiyo interestigiinaa keenay fucking rabitaankiinaa keenay inay interest ku noqdaan dhaqan saan hadda interest ugu yihiin xumaan leh in la raadiyo ama daraamo la kariyad gareeyo inaa interest ku noqotaan waa wax lala yaabo waayo calsha xumaan inaa interest ku noqotid waa wax lala yaabo ay ku qabato bun camal kuu qabato laakiin waxaan idiin sheegaa waxaan waa iska dhammaahayaan si kastoo wax u qaldan yihiin si kastoo wax u jiraan waa laga gudbaa waana iska dhammaahayaan sababta mar kasto sababta ceeb qof leeyahay loo keenayo ama qof caana dhibaatadiisa aa u arkaysaanna ma idin sheegaa sababta aa mar kasta dadka caanka ah xumaantooda iyo ceebtooda ay soomaalidu u raadiso ama aa mar kastaba qof fanaana ama qof bulshada magac ku leh in ma aragta la yiraahdo waxbaa laga hayaa waxbaa saanuu yahay kanuu yahay in la yiraahdo maxaa koos gareeya mataqaaniin idinku way dhacdaa uun laakiin sababta isma weydiisaan sababta waxaa waaye inaa interest ku tihiin la ogyahay waxaa la ogyahay inaa interest ku tihiin inaa aragtaan qof famous oo soomaalida laga dhex yaqaano inaa ceebtiisa aragtaan calashaan fiiriya awalan waxba laydinku dheefayn xabad hadda laydikuma dheefaynaday ayadoon xabadna laydinku dheefayn aad waxaad extra keensateen ood ku darsateen inaad xumaanta dadka aad raadisaan ceebta dadka inaad aragtaanaad jeclaateen ayadoon dee munaafacaad kala dhan laydinku qabin marka that's why dadka xumaanta raadiyo ama dadka dabagala waxay wax u raadiyayaan u adeegayaan sababka ugu maqan yihiin idinka waay marka maskaxdayda yar ka shaqaysiiyey waxaa ii soo baxday this people oo aan ka dhalanay they feel boring ay ku dareemoyaan arrintii tusmaay ma aragtay way ka caajiseen they feel boring aaday boring u yihiin caajis waxay hadda marka arkeen kilibkan yar oo lala carcararaayo 11 dumara 11 naagood oo caana aa lahaaya camal maxaa marka ka helaya haddayba jirto xataa oo lahaayo naag soomaaliya oo caana oo la afuufo waayo ama nin soomaaliya oo caana wax afuufo waayo maxaa marka ka helaya haddayba jirto xataa oo lahaayo naag soomaaliya oo caana oo la afuufo waayo ama nin soomaaliya oo caana wax afuufo waayo asxaabay soomaalida ma aragta soomaalida caadi ma ah luuqa waxaa la ii soo dhigoyaa clip yar oo waraysigii tusmo laga soo jaray marka waxay ii soo qorayaan farxiyo 21 naag 21 naagood oo caana aa lahaayaa oo soo socdaanay dhahoosaay maama tusmay farxiyoy goormaa la soo daynaa hees miyaa hees new song miyaa oo video cusub miyaa oo soo baxooyo oo shimee la soo daynaa soomaali waaba fadeexad u diyaar waayba dad waxaa waayba you guys life kala dhan iyo qurux iyo ii sheeg asturnaan iyo sharaf ma raadisiin fadeexa raadisiin yaa subxaan allah waxaa wax laga yaaba ah mujtamac dhan dad dhan bulsho dhan oo raadinayso inay qof wax lid ku ah arkaan wax xun oo qof kale xumaantiis inay arkaan calashaan jecel say u badan yihiin aan ka hadlooyaa Soomaaliya say u badan yihiin asaas aday anaga inta nadiifka oo yar dadka yar anaga waa dadka jecel inay ma aragtay wax xun arkin ama aan interest ku ahayn dad yar waaye marka majority aan ka hadloonaa lambarka badan aan sheegoonaa
حلاش